maareeyaha guud ee dekedda weyn ee Muqdisho Danjire Maxamed Cali Nuur Amiirko ayaa xarunta dekedda magaalada Muqdisho ku qaabilay fanaanada weyn ee Bintu Cumar Gacal oo kamid ah hobolada qaranka ee Waaberi. maareeyaha ayaa ugu horeyn fanaanada ka dhageystay warbixin kooban iyadoo sheegtay in waayo badan oo nolosheeda kamid ah ay xirfadeeda ugu soo adeegtay dalkeeda iyo dadkeeda hase ahaatee ay maanta la tacaalayso duruufo kala duwan oo dhinaca nolosha ah. maareeyaha guud ee dekedda Muqdisho Danjire Maxamed Cali Nuur Amiirko ayaa amaanay doorkii wanaagsanaa ay hoboladan caanka ah ee Bintu Cumar Gacal ku lahayd wacyigelinta bulshada ee dhinaca wadaniyada iyo madadaalada. إلهي وحن كان بريء عمري ليه روح عافمال له إلهي بلاي قوتش قلن كاج إلهي ما قلنجي إلهي وحن كان بريء ومد النبي محمد وبقني كوت عيش كان عليكم كوت حي إني كوت عيان